iyadoo gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka lagu amray inay dadka guryaha joogaan si loo xakameeyo faafidda xanuunka COVID-19 taasoo saameyn weyn ku yeelatay nolosha dadka guud ahaan gaar ahaan kuwa jilicsan oo ay ka mid yihiin waayeelka iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba. hay'adda samafalka ee Greater Minneapolis Community Connections oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano GMCC ayaa ugu deeqday cunno 200 oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee waayeelka iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba ee degan magaalada Minneapolis iyadoo u marisay ururka Daarul Xadiis taasoo dareensiisay dadka jilicsan deeqdan la gaarsiiyay in lala qaybsanayo culayska uu keenay xanuunka COVID-19. Sheekh Tawakal Yusuf Ismaaciil oo ka socday ururka Daarul Xadiis ahna gudoomiyaha guddiga howlwadanada gobolka Minnesota ee la socodka arrimaha COVID-19 waxa uu warbaahinta qaranka Soomaaliyeed u sharaxayaa cidda ay gaarsiinayaan iyo muddada ay soconayso deeqdani. maartay dadka waayeelka ah ee da'dooda 60 iyo wixii ka weyn iyo dadka disability-ga waxba qabsan karin in cunto 14 bari la siiyo waa loo kala duwayaa maalin walba maalin waxa la siinayaa cunto maartay qudaar iyo fruit iyo caysh iyo waxyaabo isku jira iyo kalluun iyo maalin bariis baa la siinayaa maalin pasta la siinayaa marka inay saa loogu kala bedbedelaan ku siinay qolada maqaayada cuntadaasi bixinaysay. Abshir Abdullahi waa mulkiilaha maqaaxida Xalwa Kismaayo ee iyadu loo xilsaaray inay diyaariyaan cuntada waxaana weydiiyay cuntadan iyo noocyada ay ka kooban tahay. Cunnada waxaan sameynay cunno isku dheelitiran oo ka kooban fruit, qudaar, protein iyo carbohydrate qofka u baahan daily. Xuseen Sheekh oo ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed ee aadka looga yaqaan magaalada Minneapolis ayaa ka warramaya dareenkiisa iyo dadka loo keenay cunnada isagoo ka codsaday in laga warqabo dadka waayeelka ah iyo kuwa aan meelaha durugsan gaari karin. alxamdulillaah aniga odayaasha meeshaan ku jira oo wixii meeshaas xaafadda laga wareysanahay maanta cunto fiican baa naloo keenay aad iyo aad waa fiican tahay dadkii way ku fadxeen waa duceynayeen waxay yidhaahaan weliba aan naloo ku sii daro. Sheekh Xasan oo ka mid ah Soomaalida baahiyaha gaarka qaba ayaa ka mid ahaa dadkii ka mahadceliyay. dadkii noo keenay iyo dadkii bixiyay iyo dadkii maaragtay hawshaan isku xil saaray aad bay u mahadsan yihiin dadka dhammaantood aad u mahadsan yihiin. ugu dambeyntii Sheekh Tawakal ayaa Soomaalida iyo hay'adaha kale ee gobolkan ka dhisan ugu baaqay in laga warqabo dadka tabarta yar. Soomaalida waxaan leeyahay xaaladan adag ee emergency-ga lagu jiro in la isgarab taago dadkii la caawiyo hay'adaha kalena sidoo kale waxa weeye non-profit organization-nada ah ee community-ga u shaqeeya iyaguna inay howlahaasi qayb gooni ah xil gooni iska saaraan dadka waayeelka ee guryaha fadhiya ee uu ku taxnaa ama maqaayadaha imaan jiray ama nolosha imaan jiray ee socon jiray hadda karantiilka maadaama uu yimid qof walba gurigiisa uu fadhiya marka dad indhoolayaal baa jira dad aan dhaqaaqi karin baa jira dad waxa weeye dad meelo kala saarnaa baa jira marka maqaayadihii haddii ay waxa weeye qofka tagi karin oo fariisan karin marka in lagu dadaalo sidii guriga wax loogu geyn lahaa. guud ahaan waxaa laga dareemayaa dalka Maraykanka saameynta uu ku keenay dhan kasta oo nolosha ka mid ah xanuunka coronavirus waxaana sare u kac balaaran ku yimid faafidda xanuunkan iyadoo tirada ugu dambeysay ee uu asiibay dalka Maraykanka ay ka badan tahay 245,000 halka dhimashaduna ay sii cagacagaynayso 6,000. Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Maraykanka.